shirkadda Yahoo ayaa dacwad la xiriirta in fikrad laga xaday waxa ay ka dhigtay Facebook maxkamad ku taala waddanka Mareykanka. shirkaddu waxa ay sheegtay in boggan bulshada uu ku xadgudbay 10 ka mid ah shatiyadooda eedeymahaasi Facebook waa uu beeniyay. kiiskan mid la mid ah ayaa Yahoo waxa ay ku dacwaysay Google sanadkii 2004 oo ay kaga heshay 2.7 milyan oo saami ah. Encyclopedia Britannica ayaa hadda kadib aan lagu heli doonin daabacaad iyadoo shirkadda soo saarta ay doonayso inay ku ekaato qaybta digitalka oo kaliya. Britannica waxa ay soo saaraysay encyclopedia ilaa sanadkii 1768 laakiin dhowrkii sano ee ugu dambeeyay qaybteeda la daabaco waxa ay soo xaraynaysaa oo kaliya 1% dakhligeeda. Encyclopediahan ayaa waxa uu online ahaa 18 sano ee u dambeeyay waxaana sanadkii soo gala boggaasi malaayiin qof. robot loogu talagalay in uu shidaal siiyo satellaydyada ku sugan orbitka ayaa waxa uu sameeyay wareegiisii ugu horreeyay ee tijaabada oo uu ku sameeyay saldhigga caalamiga ee hawada sare. robotkan oo laba gacmoodla ah oo Canadian ah ayaa la yiraahdaa Dextry waxaana uu soo bixiyaa tuulal isagoo markaasi howlo kalena qabtay inuu meelo xiro iyo inuu isticmaalo tuulka xarkaha lagu gooyo dhammaantiisna waxa uu yahay mid la hagayo. Dextry waxa loo isticmaali karaa inuu shidaal siiyo satellite-ka jooga orbitka iyadoo qaar badanba ay halaabaan marka uu shidaalku ka dhamaado. militariga Mareykanka ayaa si guul ah u tijaabiyay system ah hub wax ka bartilmaameedsanaya meel dheer oo laga dareemayo 1,000 mitir oo markaasi maqaarka gubaya. xaqiiqadu waa iyada oo systemkan oo 100 jeer ka awood badan microwave-ka caadiga ah aaladani waxa ay saameynaysaa qaybta kore ee maqaarka haddana waxa uu yahay mid dib loo soo celin karo gubashadiisa. militarigu waxa ay sheegeen inuu leeyahay applicationo badan oo loo isticmaali karo in lagu kala hago meelaha wax lagu baaro iyo dad badan marka ay meelo isugu soo baxaan.